naqshadan oo ku fadhida dhul cabirkiisu yahay 25 mitir iyo 25 mitir isla markaana imika dhismaheedu ka bilowday magaalada Garowe oo laga hirgelinayo waxa ay ka kooban tahay oo gudaheeda aanu ka qorsheynay 4 hurdo oo mid yahay qolkii masterka oo aad u waasaca 3 suuli oo mid yahay kii masterka la socday isaguna oo aad u weyn yahay intaas waxa dheer kitchen iyo storekeedii oo isaguna isla buildingka dhexdiisa ku jira sidoo kale waxaan ka marnay isaguna fadhi iyo cuntadii oo waasaca oo aad u weyn dhismahan waxa uu leeyahay laba barande oo lagu leersan karo la iska hoos fadhiisan karo sidoo kale waxa uu leeyahay surface qolkii surface-ka iyo suuligiisii ama hadba waashmaanka qofka sidoo isticmaalo sidoo kale waxa uu leeyahay barxad aad u ballaaran oo ku yaalo parking gaarigaaga aad har ahaan ugu isticmaali karto har gelin karto sidoo kale waxaanu ugu talagalay dhismahan inuu yeesho landscape fiican oo aad u qurux badan oo qofku ku nasan karo marka uu iska joogo gurigiisa meel ay caruurtu ku ciyaari karto maadaama dhulka uu haystay uu ahaa dhul aad u weyn haddaad eegto formka guriga ama qaabka aanu nashqadeynay dhismahani waa nooc loo yaqaano jiingad qariska ama fooq lamoodka isagoo gurigii aan sabad ahayn ama aan fooq ahayn ayaa haddana fooq lagugu ekaysiinayaa oo qofku oo dusha u baxa mooyaane waxaad moodaysaa guri sabada inaad degan tahay daaqadaha iyo lightingkiisa iyo waxaasoo dhanna aad iyo aad baan uga taxadarnay insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa markuu dhismahani dhammaado inuu noqon doono dhismo aad u qurux badan oo isla markaana noociisu ku cusub yahay magaalada haddaba cid kasta oo danaynaysa in ay nashqad samaysato nooc doonaba ha ahaado ama mid yar ama mid weyn waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaananu u haynaa shaqaale khibrad iyo aqoon u leh shaqadan designinka iyo nashqadeynta guryaha si aad noola soo xidhiidho nagala soo xidhiidh lambarada shaashada ku qoran meel kastaad joogto shaqadan waanu kuu qabanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu